intaana muuqaalka u guda galin waxaan ka codsan lahayn inaad channelka subscribe saarto waxaan doonaynaa inta aan la gaarin ramadaanta ka hor inaan gaarno 30,000 oo subscribe marka haddii aad subscribe hore u saartay videogan like saar si uu dad kale oo badan u gaaro ay iyaga u saaraan subscribe. magacaygu waa Sofia. sheekadani waxaa iigu dhacday sanadkii hore maalinta jacaylka 6 bil ka hor. maalintaas waxaan isbaranay wiil lagu magacaabo San. waxa uu ahaa mid aad wanaagsan aadna igu naxariista. wuxuu ahaa mid waqti yar aad igu soo dhawaaday. wuxuu ahaa mid dareensiiyey jacayl aad u tiro badan. wadakeedii baa waxa uu soo bandhigay in maalinta jacaylka oo ah maalinta beri aan tagno guriga hooyadiisna ay tiri waxaan idin diyaarinayaa casho oo inoo imaada. waana igu qanciyay waana iska ogolaaday anigoo aanan saas ugu sii faraxsanayn balse waan iska ogolaaday anigoo raba inaan soo codko waalidiintiisa iyo ehelkiisaba. markii la gaaray habeenkii saacaduna ay ahayd saqbarka ama 12 habeennimo waxa uu siiyey wax aad u qurux badan aadna aan ugu farxay. sidoo kale waxa uu soo iibiyey cake aan aad uga sii helay. wuxuuna i tusiyey jacayl aad u tiro badan maadaama uu iga rabay inaan beri raaco. subaxdii markii la gaaray ayaan alaabteedii iyo alaabtiisaba diyaarsanay kadibna aan baabuurka soo saaranay si aan u baxno. waana soo dhaqaaqnay waxaana soo aadnay dhankii iyo guriga waalidiintiisa meesha uu ku yaalay. guriga waalidiintiisa waxa uu ahaa mid ku yaalo bannaanka kore ee magaalada maadaama ay waalidiintiisu ahaayeen beeraley. xilligaas waxaan ahayn 2 qof oo aad isku faraxsan sidoo kalena aad iskula sheekaysanayaan. waxaana weydiiyey imise qof ayaa guriga horta kuwa joogtaan. wuxuuna igu yeeray saas uma tira badnin labadeeda waalid iyo walaasheeda yarta ah iyo ayeeday 4taas oo kaliya iyo aniga oo 5 ku ah. 5taas qof ayaan nahay. arrin wanaagsan ayaan ku dhahay laakiin imaada sheegin gabadha yariista ah maxay ku dhacday. wuxuuna igu yiri laga yaabaa inaan taas u xasuusanin markaa saas laga yaabaa. okay ma xuma. xilligaas saas farxad uma dareemaynin mana aqaan walwal ayaan si alla u dareemayay. markii aan soo soconay ayaa la soo wacay waxa soo wacday hooyadiis. wuxuuna ku dhahay waan soo dhownahay hooyo isa sii diyaariya. wuxuuna igu yeeray wadadaas markii aan wax yar ka leexano ayaan guriga gaareynaa wax badan inoogama baharinba sugi waayeen. ayaan ku dhahay wajigayga ka soo yara muuqday yara murugo mana aqaan sababta aan u yara murugaysanaa oo aan murugada u dardareemayay. gurigii ayaan soo gaaranay. guriga wuxuu ahaa mid meel geesa ku yaalo aadna u qurux badan. hal mar ayuu hoonka yeeriyay waxaana soo carartay gabar yariis ah gadaasheedana ay socotay haweeney. waxaan u arkay inay tahay walaashiisa yareed iyo hooyadiis ayaana soo carartay xaba ayana siisay. waxayna ku tiri wiilkayga aad ay duweynatay. waxayna ku tiri Sofia aad ay u qurux badan tahay way soo baxday wayna imaaday kadibna xaba ay siisay anigana aad ayaan ugu farxay arrinkaas. waxayna ku tiri banaanka si taagnateen ma ahan aan gudaha galno. guriga wuxuu ahaa mid aad u qurux badan aadna u weyn. sidoo kale waxaa jira qol banaanka kore ku yaalo balse ma ogeen wax uu yahay qolkaas. gurigii ayaan gudaha u soo galnay. waxaana guriga gudaha u soo galnay habar guriga dhex fadhido iyo sidoo kaleeto nin kale oo meesha joogo. wiilkii wuxuu u tagay ayadiis wuxuuna ku yiri ayeeyo aad ayaan kuugu xiisay beriyahan manaan ku arkin iska waran. waxay tiri fiican aniga ayayna soo fiirsay kor ilaa hoos ayayna ii fiirsay. waxaana dareemay inaysan igu faraxsanayn. waxaana ii imaaday aabihiis wuxuuna igu yiri barasho wanaagsan. aniga waxaan ahay Sam aabihiis barasho wanaagsan. waa uu ii sheegay Sam magacaaga aad ayaan uga faraxsanayn xilligaas. Sam hooyadiis ayaa waxa ay tiri wax ka xumahay qolka ayaa aad noogu yar marka waxaad la seexanaysaa gabadha yariista ah qolkeeda. waxaad ayaan ku dhahay waxayna ku tiri hooyadii orod abayda sii kaxee oo waxaad geysaa qolkaaga soo natusmaysa saxnayso. ay qosasho waxayna ku tiri hay aniga ayaa kaxeenayo. way soo kaxsay gabadha yareed waxayna soo aadisay dhankii iyo qolkeeda. markaas u soo galana waan nahay. waxaan arkay qolka inuu ku naqshadaysan yahay ama ku qurxisan yahay madaxyo xayawaano oo kala duwan. xayawaanadaas waxay ahaayeen kuwa aad moodid ku aad looga cabsanayo. waxayna ku tiri waxaan waa soo ugaarsanay. waxaana weydiiyey waxay ka wada ugaarsi maxaa ugaarsi noocee ah. waxay tiri aniga iyo aabahay maalin kasta oo xada waxaan jecelnahay inaan wax soo ugaarsano oo aan wax soo dabano. marka alaabtan waxay ka mid yihiin waxyaabo aniga gacanteeda ku soo ugaarsaday. marka aniga ayaa meesha ku dhigsaday. waxaan imaaday Sam wuxuuna igu yiri waan ka qariyay qoyskaygu sidoo kale waxay yihiin dad ugaarsata ah oo waxay ugaarsadaan xayawaanada duurjoogta maadaama ay yihiin dad duurjoog ah. umada sheegin miina mar uu sheegtay eebaheed arrinkaas ay gabadh yariista ee tiri ay soo baxday waxayna soo aaday dhankii iyo waalidiinteeda. wuxuuna igu yiri wax dhiba ma ku jabno wax dhiba ma lahan marka inta yariistii aan joogno iska yara dulqaado. waxaan ku dhahay ugaarsi dhib ma lahan waxaa ugaarsadaan maxay tahay xayawaanada madaxooda meesha lagu warwaranayo dhib ma lahan xabiibtii caadis ka dhiga iyo wuxuu balaaween oo idajiyo. waan iska aqbalay waxaan iska dulqaaday 40 beri ee aad guriga joogto. gabadha yariis ayaa maantay waxayna tiri xilliga cashada ayaa la gaaray. cashadii ayaan soo aadnay.
cuntada waxay ahayd mid aad u macaan aadna u qurux badan hilibka wuxuu ahaa mid aad u bisil aadna u macaan waxaadna moodaa inay kariyeen dad professional ah sidoo kale waxaa ka sii darnaa maraqa wuxuu ahaa mid aad u macaan aadna xasaasi u ah gabadha yarta waxay ahayd midaanan aamusin aadna u hadal badan sidoo kalena kaftankeedu iska badan yahay ayaan dadka noocaas oo kale kama bahelo habeenkii markii la gaaray anigoo Saam la hadlay ayaa wax si kaliya ku yimaada bi waxaana ku yiri Saam oo soo bax ugaartii ayaan soo qabsanaynay waxaan weydiiyay ugaartu ka hadlay maxaa waaye ma ugaar ma ahane banaanka ay warbaa inaan soo yara jijbasano soo yara wardigno wax yar oo ugaarana soo yara qabsan marka wax kale ma jiraan bari aan wada hadli doona aad iska seexo markii baan aniga u jeeday gaari qaateen wayna baxayn heereenkaas cajiib ayuu la noqday waxyaabahan oo dhan muxuu kaga qariisaa waxaan dhan muxuu kugu sheegay oo qoyskiisa ku saabsan habeenkii sidii ayaan ku seexday anigoo la yaaban kala fikiraayo xilli ay saqda xataa ayaan waxaan maqlay qayl haweeney waana naxay dhahayaan kala qaaday markaan soo kacay fadhiistay waxaan fiiriyay dhankayga bidixeed misana gabadhii yiristeed maba jiifto waan yaabay dhanka midig aan fiiriyay misana hal mar waxaan arkay gabadhii agtida taagan waxayna ku fadhidayba sariirta aniga ku jiifo waxaan weydiiyay maxay inta ka qabanayso si aad looga cabsanay ay soo fiirso anigu tiri qaylada aad ka soo naxayso maahan qayladaas waa doofaar qayladiisa marka waxba ka cabsanayn doofaarka dambe aad maxamed ka qabanaysaa mid kale codkaas cod doofaar ma ahanba may waxaas ma jiraan doofaarka markii uu naxsaas ay u qayliyay adiga ayaa mooday ka hortada iskaga laabo ay gabadh yareed u tiri si aan gabadh yarta u mashquuliyo waa inaan yara seexdo waxaan rabay in waxyaabo badan ogaado hay ayaan ku dhahay waxaan iska dhigay wax seexday barsamana ma seexanin xilli yar kadib waan soo kacay waxaan fiiriyay gabadh yaristeed waxaan arkay inay jiifto waan soo kacay waan soo daba maray waxaan arkay qolkii yariska ahaa ee banaanka ku yaalay oo nalalkiisu ay wada shidan yihiin waxaana go'aansaday inaan aado waan soo baxay waxaana soo aaday dhankii shanqarteeda aad ayaan u yareynayay si aanan lihi maqal waan soo gaaray meesii balse labku waxa uu ahaa mid xiran balse nasiibkayga waxaan maqlay codkii ama qosolka aabihii iyo Saam baqbaq ayuuna guriga lahaa babaq markii fiiriyay waxaan arkay waxaan aad uga cabsaday oo naxay waxaan arkay haweeney meel u saaran amaba meel sariir oo kale u saaran bisna dhiig badan ka daatay aadna arkayso inay dhimatay sidoo kalena aad caadi ugu jeedid in la qalay si fiican uma nasi arki karin maadaama uu qof iga qariyay oo iyaga kamid ah aad aniga u naxsan waxaan dhageysanay sheekadu waxayna ahayn kuwa aad u faraxsan sheekaduna ay iskugu baxayso waxaan ogaaday inay dadkan yihiin dad qalato sidoo kalena ay yihiin dadka cuna wax kasta waxay ka daran Saam waxa uu ahaa mid aad u faraxsan taagana bari waxaan soo afdoobanayna qof nin ah aniga naxdinta darteed waxaan si kedisa gacanta ugu dhuftay albaabkii shanqartii ayaan maqlay waxaan dheen qof meeshan jooga aniga markii waan sii cararay markii salabka la soo furay waxaan aniga sii galay gurigii kaleeto imana aysan arkin oo soo bax banaanka ayuu fiirfiiriyay waa iska laabtay anigii waxaan isweydiiyay meeshan waxa ka qabanaysaa xiligan waana fursadii ugu wanaagsaneed ee aan haystay waxaan soo qaatay free waxaan damcay inaan baxo isna waxa bii hor taagan baahiyadii cabsida badneed waxaan iga tiri gabadheedii ma baxaysid waa joogaysaa adiga wiilkiina ayaa ku aroos rabo meeshaan iska ilow inaad ka baxdid halkan ayaad weligaa joogaysaa wiilkan ayaa ku jeclaaday mana bixi doontid waa khaldan tahay ayaan dhahay aniga ayaa imaada meeshaan waana ka tagayaa midaas waa ina ogaataa mana idinla joogaa waxaan idin dad cun inay cuntaan ayaad rabtaan waan idin ogaha waan idin ka tagayaa waxay bilowday ayadii inay meelaha qalqayliso ee codlayaab ku qayliso aniga maan sugin feer ayaan ku dhufto waana ka soo cararay waxaan soo fakada gaarigii ayaan soo fuulay isla markii waxaan arkay in nalala kala soo wada shiday sidoo kalena ay dadkii dhan soo wada kaceen aniga markii baan soo cararay waxaan nimid booliiskii ayaan arrintii oo dhan u sheegay markii maalintii la tegin waxaa la watay guri gebi ahaantiisaba la gubay waxaan xaqiiqsaday inay baxsadeen inay ka fakadeen meesha si aan la ogaanin waxayna ogaayeen inaan aniga soo sheegi doono oo aan booliiska aadi doono balse waxaan aad uga fikiraya gabadhii yariista ahayd ee aad kula hebka badneyd waxaana isdhahay gabadhaas ka baran haddii habeenkii ay rabtay inay ku cunto adigaba fadlan haddii aadan weli subscribe inoo saarin si aan u gaarno hadafkeena oo ah 25,000 muddo kooban gudaheed midda kale dadka subscribe inoo saaray aad ayay u yaryihiin oo waxaa ka tira badan inta qof ay aanan inoo saarin ee videosheena daabatay marka isku day inaad subscribe inoo saarto sidoo kale aad videoga qurxiso adigoo taabanaya like aad u mahadsantahay